kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution dad ku cusub tahay subscribe ka saar beelkana shido si aad u heshid casharadii ugu dambeeyay oo noqotid kuwa u hor daawada hala hilmaamin inaad like saartid barnaamijka ana wadaag walaalahaaga Soomaaliyeed si ay uga faa'iideystaan waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. kusoo dhawaada channelkeena Somali Technology Solution. insha Allah maanta waxaan kaga hadli doonaa sida website loo sameeyo adigoo isticmaalaya 2 saacadood amba saacad ku sameynaya website dhameystiran oo functional. website kaasi ayaad ila socon doontiin step by step anini bari doonaa haduu leeyahay insha Allah dadka jecel doonaya inay website ku shaqeystaan sida website-da loo dhiso inagoo isticmaalna wax la yiraahdo WordPress. laba nooc oo website-ka lagu sameeyaa mar waxa lagu koriyaa amba lagu dhisaa computer-kaaga adigoon haysan wax loo yaqaano domain. aan halkan ku sheegi doono domain. si aad domain u heshid marka koobaad waxaad u baahan tahay inaad magac iibsatid like somaliinformation.com for example amba maxaan ku idhaahdaa bbc.com for example. taas waxaa loo yaqaanaa domain. kaasi waxaa loo yaqaanaa magac. domain waxa weeye waa magac. domain name system waa kaas. waxa kalood u baahan tahay wax la yiraahdo hosting ayaad u baahan tahay inaad hosting haysatid isagana. hosting waxa weeye waa meeshii au faylalkaagu ay ku noolaan lahaayeen amba dhigin lahayd faylalka. marka saddexaad waxaad u baahan tahay number 3 waxaad u baahan tahay inaad haysatid software aad ku dhisasid website-kaaga sida number 1 WordPress, JOOMLA oo kale amba adigoo isticmaalaya another language programs sida C# amba HTML, CSS iyo wixii la mid ah. HTML5 bay dadka qaar ku isticmaalaan laakiin anigu waxaan tusi doonaa ta ugu easysan ee adduunka number 1 ah ee loo yaqaano WordPress oo ah mid easy ah oo ah content management system taas ayaan ka hadli doonaa. so marka koobaad waxaad u baahan tahay domain markaas aad ku helaysaa domain waxaad ku helaysaa inaad gadatid for example in a website-ka intaad tagtid ionos.co.uk intaad gashid ayaad ku qoraysaa domain-kaad rabtid. marka let's say waxaan iibsanayaa Somali info for example .com oo kale magacaad rabtid inaad gadatid ayaad halkaa ku qoraysaa kadibna waxaad leedahay check wuu kuu check garaynayaa markaas magacii. okay somaliinfo.co.uk iyo available org saas magac markaa waad gadanaysaa lacag ayaad la baxaysaa. waxaa lagaa rabaa sanad kasta lacag inaad ku gadatid ood la baxdid. saas magaca loo gataa. haddaan magac kale tijaabino waxaan leenahay barashada IT-ga aba it.com for example. magaca waa available marka saas kugu soo baxaya magacaasi ayaa rabaa inaad gadatid. magacaasi waa magacii adiga lagugu helayay ee website-kaaga lagu helayay ayaa nooca noqonaya. magac ayaad u baahan tahay. haddii marka labaadna waxaad u baahan tahay inaad hosting iibsatid. so si aad hosting iibsatid waxaad gelaysaa website ayaad ka gadanaysaa. for example hosting waxa weeye waa computer-kii faylalkaagu ay dhex ooli lahaayeen. hosting waa very important. haddaad doonaysid website-kaagu inuu noqdo mid live oo shaqeeya. okay so si aan u gato hosting for example way badan yihiin hostingku laakiin kuwa ugu fiican mid kamid ayaan eegana mid la yiraahdo mid waxaan tusay la yiraahdo SiteGround. okay SiteGround waa sidan oo kale han si fiican inii tusay isagana. hosting waa number 2 lambar koobaad waxaan magaca inaad haysatid
oo domain ah. Second waa inaad haysatid. Number 2 waa inaad haysatid hosting, meesha aad dhigan lahayd web hosting platform baa loo yaqaan. marka anigu kan isticmaalaa waa very important. web hosting wuxuu ku tusayaa lacagta intaad ku gadanaysid. web hosting ayay haysay marka qiimo kala duwan ayuu leeyahay. so haddaad rabtid marka web hosting, let's say ka ugu horeeyaan fiirinana, lacagtiisu waxay noqonaysaa sidan. waxay noqonaysaa bil kasta lacag baa laga rabaa. waxaa la rabaa sanad kastana way siyaadaa. okay, so web hosting markaad iibsanaysid startup halkan uu ka bilaabay ka ugu jaban waxa weeye ilaa 7 geni 6 geni weeyaan lacagta Ingiriiska. wuxuu ku kala duwan yahay waxyaalaha faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa kamid ah. marka sidan ayaa kamid ah isagana noocyadan. marka kan web hosting kaas ayaad qadanaysaa. marka labaad, marka saddexaad, number 3 waxaad u baahan tahay in aad haysato waxa loo yaqaano WordPress. okay, WordPress iyaduna waxa weeye waa key website-da aad ku samayn lahayd. WordPress waa content management system. waa tii aad ku dhisi lahayd website-kaaga. tii aad ku dhisi lahayd website-kaaga weeye ee website-ka ku dhisisay weeyaan WordPress. WordPress waa meeshaad website ku dhisi lahayd. waxa kaloo kamid ah mid kale la yiraahdo isagana, mid kale la yiraahdo waxa jira JOOMLA. isaguna waa caan oo sida WordPress oo kale la mid yahay .org. JOOMLA isagana jira, isna waa la soo download garaystaa. waa content management system. okay, marka maxaad u baahan tahay? maxaan idhi site. waxaad u baahan tahay inaad magac gadatid. number 1 inaad magac gadatid oo any website magacyada gada aad ka gadatid. secondly waxaad u baahan tahay hosting. markaad heshid waxaad u baahan tahay inaad haysato waxa loo yaqaano content management system sida WordPress amba JOOMLA amba Drupal amba noocyo kale oo HTML5 adigoo isticmaalaya. marka saddexdaas ayaa ah core ka website-ka wax lagu bilaabo. saa ula soco, saddexdaasi ayaa ugu muhiimsan. maxaan nidhi waa inaad magac gadatid, domain loo yaqaan, magacaasi oo noqonaya website-kaaga amba blog-gaaga waxaad ula baxso. number 2 waxaad u baahan tahay hosting. waxaad u baahan tahay hosting inaad haysato. okay, hosting ayaad u baahan tahay. number 3 waxaad u baahan tahay content management system, software-kii aad ku dhisi lahayd website-kaaga. marka casharkani taas ayuu ku saabsan yahay insha Allah. waana sii wadi doonaa, la socda qaybaha dambe hadduu ilaadho insha Allah. hosting-kii ayaan gatay, username-kii password-kii aan ku galay, website-kan aanu bixiyay dalxiis.net insha Allah ayaan ku shubi doonaa WordPress. marka la socda khiyaarta. okay, si aan ugu shubo waxaan tegayaa horta intaanan tan u gelin, haddii aad rabtid website inaad ku samaysid computerkaaga kadibna aad u gurtid hoos, after that waad samayn kartaa. taasina cashar kale ayaan ku qaadan doonaa adigoo ku samaynaya hosting website-kaaga gudihiisa. okay, so waxaad isticmaali kartaa mid la yiraahdo WAM ayaa kamid ah. WAM server ayaa kamid ah, ayaa lagu dhisaa. kaasi waxaad ku download gareynaysaa computerkaaga kadibna wuxuu ku sameynayaa hosting-kii iyo waxa ku jira WordPress labadaba. laakiin magacu wuxuu noqonayaa magaca local computerkaaga oo kaliya ayaad ku isticmaali kartaa. ma noqon doono magac live oo internetka laga soo galo. waxa kaloo la isticmaalaa mid kale la yiraahdo sam. ka ugu horeed qadanaysa sam, kaasina waa la soo download garaysaa. isagana wuxuu ku sameynaya waa Apache iyo server oo isku jira oo combine isku ah. computerkaad ku shubaysaa, local computerkaaga ayaa developing ku sameynaysaa oo ku dhisaysaa. waa very important qofka raba inuu website-ka ku sameeyo computerkiisa dhexdiisa. okay,
kasi gudbana markaas anigu marka hadaba waxaan rabaa inaan ku shubo anigu hadda waxaan haystaa magac waan haystaa hostina waan haystaa marka WordPresskii ayaan ku shubay number 3 la socdo markaas okay waxaan tagayaa cPanel markaan tago halkan waxaa kasoo baxay website-kayga halkan website-kaaga kasoo baxaya sida halkan u jeediin programyada website-ka lagu dhiso waxaa kamid ah sidan waxaa kamid ah JOOMLA WordPress Magento and PrestaShop to la yiraahdo iyo PHP PP3 okay anigu waxaan rabaa markaa inaan install gareeyo oo ku shubo WordPress okay WordPress ayaan ku dhufanayaa waxaan ku shubayaa domain-keygii la socda step by step ayaan inigu sameynayaa si aad si fiican u aragtiin okay WordPress what WordPress is a web software you can use to create a beautiful website or blogs website-dada iyo blogska ayaa lagu sameeyaa waayahay tan ayaan rabaa markaa inaan ku shubo website-kayga cusub aan sameynaya hadduu ilaahay insha Allah okay waxaan leeyahay install haddaan idhaahdo halkan waxaan ka dooranayaa domain-ka aan rabo inaan ku shubo okay nooca u dambeeyay ayaan dooranayaa nooca u dambeeyay oo version-kii u dambeeyay ee WordPress-ka waxaan doortay 5.6 okay dalxiis.net ayaan ku shubayaa kadibna waxaan sii dooranayaa site-kayga magaciisa waxaan leeyahay dalxiis ayaan u bixinayaa description xaggan ayaan ku qoraya waxaan leeyahay waa dalxiis website okay halkan waxaad gelinaysaa username-kaaga iyo password-ka aad ugu talagashay domain-kaaga waa very important okay halkan waxaad gelin doontaa email-ka aad ugu talagashay website-kaaga for example okay halkanna luuqadda ayaa dooranaysaa English iyo luuqadihii hoos haddaan usoo degano start up WordPress miyaa doonaysaa maya baan odhanayaa so anigaa rabo inaan kusoo dhamaan gareeyo okay hoos ayaa u deganaysaa kadibna waxaad oran doontaa install intaa markaad samaysid qaybaha kale ayaan la soconaa laakiin installation-kii ayaan halkan ka bilaabanaa haddaba hadda ayaan ku shubanaa la socdo waxaan leeyahay install kadibna waxay noo sameynaysaa installation-kii inoo wada saad la socotiin eega installation-kii WordPress-kii ayuu inoogu shubayaa website-keena hadda si toosa saad la socotiin okay wuxuu qaadanayaa about 3-4-5 minutes waxaan ma rabo inaan waqti badan inaga qaato waan pause gareynayaa waan kusoo wada noqonaa markuu dhameeyo haddaba wow wuu ka yaraaday deg buu dhameeyaba haddaan tago website-ka imiga wax alla wax ku jira markaas ma jiro website-ku waa empty wax alla wax ku jira haba yaraatee ma jiro website-ku waa empty dalxiis website-keeni dalxiis insha Allah ayaan markaa ku tijaabinaa si ardaydu arkaan dalxiis okay hadaba waxaan rabaa inaan galo domain-kaygii saad la socotiin waxa lagu galaa
website-ka magaciisa ya oo dalxiis.net ah. hadda waxa la wax inoogu jira meeshan ma jiro, si markaan ugu sii socono waxaan leeyahay kan iska xidho. okay, saad ula socotiin website-keeni waa kan, hadda waxaan joognaa meeshii configuration laga sameynayay WordPress-ka inside. okay, waxaan rabnaa inaan soo download garaysano Themes. waxaan rabnaa inaan soo download garayno, waxaan leenahay halkan ayaan tegaynaa blogs. hadda xabad kaliya ayaa ku jirta. waxaan rabnaa inaan kusoo add blogs, add new blogs. halkan waxaan ka raadinaa Astra Themes mid la yidhaahdo. Astra Themes starter buu inoo soo helay, saad ula socotiin. noocyadan badan ayuu kuusoo helayaa. qaar waa lacag, qaar waa free. okay, akheerta waa isku soo noqonay. Elementor beaver builder kan ayaad ku dhufanaysaa. markaa waxa download garayso kooleyso iskaysa 9,000 ayaa isticmaalaa la yidhi halkan. kanaad leedahay install. okay, xoogaa few second buu qaadanayaa. activate baad oranaysaa markaas. okay, so template ayuu inoo helay. marka haddaan halkan idhaahno away, haddaan dalxiis mar kale eegno, okay, wax template ma haysano. waxaan kaloon soo download garaynaynaa okay, mid kale ayaan ku daranaa. waxaan leenahay waxaan soo download garaysaa Elementor. Elementor waa kii wax lagu qorayay. kan waa free. Elementor website builder kan ayaad soo download garaysanaysaa isagana. okay, activate baan leenahay. Elementorka haddaad jeceshahay fiidada iska daawo, wuxuu leeyahay qayb free iyo qayb lacag ah. marka ka freegan iska isticmaalanaa. okay, haddii markaa aad rabtid inaad website dhistid, waxaad isticmaalaysaa Elementor. si aan Themes u helno, waxaan leenahay Themes ayaan rabnaa inaan soo download garayso. Themes ayaa tegaysaa. hadda Themes maxay noogu jiraa? waa inaan Themes soo helno. waxaan leenahay messagekan ku kena Astra. Astra noo soo raadi baan leenahay. Astra waa Themesyada ugu caansan. so Astra dhowr nooc ayaa jira, tan iyo tan. okay, mid kamida ayaan qaadanaa markaa inagu. intaanad qaadan haddaad doonto waad sii fiirinaysaa nooc u eg tahay. noocayan ayay tani u eg tahay, waad iska sii fiirfiirin kartaa. okay, waad ka noqon kartaa, halkaas ka xidhi kartaa. marka kuwan Themeskan ayaa loo baahan yahay mid kamida qaatid. haddaan dhacdo tanna tus, tanna noocan u eg tahay markaas. okay, waa free iyaduna. waxaan leenahay install. okay, that's good. waan install karina iyadiina. Themeskiina waan ku shubnay. haddaan idhaahno websitekiina tus, hadda wax alla wax inoo diyaari ma jiro. waa kan Themeskaan dooranay. noocayaad baa inoo soo baxay. site bay leedahay. websitekeena magaciisii
teamska magaciisii wixii dhan ayaa inoogu soo baxay xaggan. I don't like this one. Okay, sala socotiin marka taana waa soo dhalan garaysanay. kolba wixii aad uga baahan tahay ee blocks ayaad xaggan ka soo dhalanaysaa. So waxaan rabnaa inaan samayno, haddaad rabtid pages inaad samaysid, waxaan leenahay pageka ugu horeeyaan samaynayna, waxaan leenahay add page. Okay, waxaan u bixinaynaa home pageka magaciisa. kadibna waxaan odhanaa pageka ugu horeeya waxaan u bixinaynaa home. markaan u bixino waxaan publish. Okay, publishka marka waxaad doonanaysaa ma private baad rabtaa inaad ka dhigtid, private password ma lagu soo galo, ma public ayaan dooranaa. visibility aragtidu waxay noqonaysaa mid public ayaa doonanaysaa markaas. Okay, haddaan xaggan tagno markaa websitekeeni isaga ahaa oon refresh nidhaahno, waxaan odhanayaa mino xabad minaan haysanaa oo kow number 1. mid kale aan rabnaa inaan soo gelino oo nidhaahno, waxaan leenahay wanna create another one. waxaan leenahay back tande create an other page. waxaan leenahay about, for example. Okay, publish baan leenahay iyadana publish. haddaan naa refresh now, minoga kale ay noo soo baxaysa. Okay, saasay markaa iskugu xigxigayaan. marka halkana waxaan gelinaynaa categoriyadii wixii aan rabnay ayaan gelinaynaa. saas ayaa loo dhisaa website-ka. qaybta waa qaybtii koobaad, la socdaa qaybaha labaadna. waad mahadsantihiin.